maalmaha kamid ah anigoo meel runtii xaflada ka qayb galay ayaa wataadi goor anashiid la qaado carabi ah ayaa runtii nin baa wuxuu anashiidii badnay la qaadaya ama nashiidooyinka carabiga ahaa buu runtii ayuu waxoogaa yar durayo markaasuu yiri maxaa waxaanoo carabi ah aynu uga baahanay mayno afkeedniiba ku heesno inaguba af baynu leenahado meeshana meel waxay ahayd runtii arrin dee qolo ka qalin jabisay maaragtay maca diiniya bahayd marka runtii arrintii baan ka yar walaacay anigoo dee qaabkii markaa aniga golamay qurux badnaanin kadibna waa dee yani carabigu muhiimad uu leeyahay xaqiiqatan luqadda carabigu ayaa runtii dee in la fahmaa wanaagsan tusaale ahaan culimada imaka marka aad arkayso meelaha qaar la weydiinayo suugaanta oo kale arkaysa meelaha caalamka culimada islamka iyadoo la weydiinayo waxay odhanayaan qofku waa inuu yani diinta wax ka garanaya oo arrimo diiniya ka hadlo oo aanu wadada kala bixin oo waxyaalaha dib iska ilaaliyo marka dee carabigu runtii horta waa luqadda imika waxay dadku waxay dhahdaan dacayad baa ku socota waxaa la yidhahdaa wuxuu sii socdaa luqadda shanaad marka hore ingiliishku baa ka horreeyaa la odhan jiray luqadda labaad baa lagu tilmaami jiray laakiin imika faransiis iyo waxyaala kale soo baxa waxa la yidhahdaa waa luqadda shanaad bay dadku yidhahda culays baana iska saaran xaqiiqatan oo dee culays waxa saaran siyaasi iyo mid diiniba uu saaran yahay laakiin inagu carabiga kama maarmi karnaba maadaama aynu ku cibaadaysanayno nin baa wuxuu yihi salaadu buu iyadaa ugu adag waxyaalaha layna faray buuri iyadaa ugu adag buuri waxa kaloo dhan baa ka fudud laakiin maxay noo fududey mar kasta waynu samaynayna yani mar kasta waynu tukanaya lagu soo celcelinaya marka salaadii waxaynu aqriyayna waa carabi qur-aanka waa carabi diintii oo dhan waa carabi dee carabigu mustaqbalkeeni akhriya baa ku xidhan marka haddaad doonayso diinta inaad barato ilaahay aad barato dee carabiga inaad baratay noqonaysaa waad qasab wala luqadii ugu dambeysay ilaahay subxana watacaala dee uu doortee dee maaragtay laynoo dooray inaynu dee ilaahay ku caabudno marka waxaa jira runtii waxyaalo dacaayaad fara badan oo iskaga furan oo maad arkay dadka la nacsiiyey manhajkii oo runtii saameyn badan ay ku yeelatay oo meelo badan arkaysa in la bedelay meelihii carabiga ahaa oo dadkii la leeyahay shaqo heli maysid oo carabiga waxba laguma cuno adeer maxaad ku cunaysaa ingiliishkaa la bartaa carabigan waxba laguma cuno iska daa waxaad kaloo arkaysaa in yani waxyaalaha weerarada ama qasulfikriga ee diinta lagu hayo waxaa ka mid ah waxa leeyahay waxa diinta maaragtay ku taxalluqo dhan baa lagu caaya waxa lagu caaya carabta ayaa lagu caaya waxa carabtu waa caynka carabtu waa dad xun oo lagu nacsiinaya luqadii carabiga lagu nacsiinaya waxaasoo dhan carabtu waa makhluuq ilaahay abuurtay ummadaasay ka mid tahay oo shar iyo khayr ba dad wanaagsan dad xun baa yidhahda nebi maxamed baa ka dhashay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii baa ka dhalatay rag badan oo wanaagsan oo qiimo leh baa ka soo baxay imankana waa laga rajeynaya rag fiican inay ka soo baxaan marka runtii taasuna waxay ahayd arrin weerar qasulfikri oo laynagu soo qaaday marka tixdaas oo runtii aan kaga warramay dee inuu nebigu calayhi salatu wasalaam carabi ku hadli jiray inay saxaabadii ajilada ahayd ee khulafaa uraashidiinka ay carab ahaayeen inuu nebigu carab ahaa inay yani casharat mubashiriin carab ahaayeen dee dadkaasu inay dad qiimale yihiin oo haddii la caayo imka carab dee maca nebi maxamed bay saameynaysaa innagaba qabiilkeena dee in la caayo ma ogolin iyadoo qaar diinta caaya ku jiraan tana qofka qoladiisa la caayaa waa arrintiisu khatar wey uu ka dagaalamaya laakiin nebi maxamed haddaad reerkoodii cayda ka warran mayna khatar ahayn marka waana iska barnaamij runtii dacaayaad iska soo galay innaga ina soo galay oo dacaayadda wadaadada lagu hayo iyo ta carabta waxaas waa wax iska socdo oo iska maaragtay runtii ujeedooyin laakiin laga lahaa marka anigoo runtii bal tixdaa wixii aan ka xusuustay insha allahu tacaala ayaan insha allahu taa carabiga aan ku dhiirigelinayay ayaan iminka insha allah doonaya inaan balgalo adduunyada cidhiidhiga ka jira ama culayskeeda arre edeg dhammaanaya haddaad caalamkaba eegto ilaa cidhifka cidhif xaaladuhu waa cakiran yihin casiiskii ilaahay markii laga cabsoon waayey markii uu cilmaanigu u kacay iyo caasigii iyo gaalku ee diintii laga caagay bay noqotay caynkaasi muslimiintan kale cararta ee haatan cabanaysa iyaga is casiray oo ka tegay camalkii fiicnaaye cisigii iyo wanaaggii markii lagala caal waayey markay daba carowday kufriga ciirsiga calmooday waa taa cabaadku isqabsaday caalamkoo idile ciidda camaaryalay ka badan cadowga diimeede waa sida camuudda ah ilaa ciidanka ibliis hadba culimadii iyo sheekhyada ay ceeb marmariyaane caalamulislaam oo dhan bay wada cabaarayn caamada markay la hadlayaan way carqaladayne waxay odhan haddaad caalamka calafka doonayso carabiga ha baran waa intaad camalba weydaay caqlin imaan lahayn baa waxaa lagu cabsiiyahay rasuulkii carshiga laga wacay calayhi salaatu wasalaam rasuulkii carshiga laga wacay ee caadilku u baaqay ee caalamkaas tare tegay ee caadka kor u dhaafay ee uu casiiskii ilaah meelfa ku casuumay ee faralka loo soo cayimay lagu cibaadaysto isba carabigu ku hadli jiray caana ku ahaaye
codka gaaladiiyo muu aqoon camalka shaydaane carabkiisa ina raacna baynoo calaamadahe caynkaa u fahan yaa wax kale lagugu caamayn kii nebiga cududoo waha caayishana siiyey casha buurta iyo kaymihii iyo godadka caariyeystay cidlada kii rasuulka iyo la maray caynta iyo duurka ee caanada maallada maqnaan soona cabanaynin abubakarkii carab u ahaa diinta caawimay cumar binu khadaabkii kufrigu uu ka cararayey ee goorta uu soo cartaba laga cabsoonayey ee uu casiiskii ilaah diinta ku ciseeyey carabtana nacdeen buu ahaa curadadeedii welibana cabqari buu ahaa caabidgeesiye caradaa madiino bulshada oon ka cabanayso iyadoo biyaha la cabayaa cururuqiyin meesha cismaan binu cafaan waa ninkii ceelkii ruum gaday cashadii tabuug lagu bixiyo cololkii duulayey kuwii cadowga waajahayay iyo ciidankii nebiga waa kistaanad culus iyadee geeshka caawimaye isaguna ciddaasu ahaa aad ka carartaan colkii khaybar lagu saarayay cududii guuraysay caska waaga goortii la galay meeshii laga caagay cali binu abidaalibkii calanka loo dhiibay ama ceelka beder maalintii waranku ciil beelay colkii soo banbaxay maalintii caradu yeedhaysay gaaladu raggay cugatay ee calan weleynayay cali iyo xamsa qaabiliyo wiil kaloo culuse markii caasha laystaray raggii cadhadu ay haysay cartankiiyo markii weerarkii laysu cudud sheegtay codka dananka geenyadu markay soo celcelinaysay markii salabku ceeryoomay iyo ciiradii iyo boorhka cagaydiiba waati kufriga cawda loo jarae calinkii kusoo cararay buu caabayoo direeye caloosha wuxuu kasoo riday judhiba gaal cadiin badan xamsana wiil cudoon buu ahaa oon cabsi aqoon nin ilaa carbiyey buu ahaa oo casiime leh isaguna caniidkii u yimi qoorta oo caseeye cutbo iyo rabiicaba markii ciidda la cunsiiyey kii kale saxaabiga cawrey lagu ceshiimeeyey isaguna dib uma ciidamayna calaf ku imaantaas nimankii cantaray maalintii ceelka laga buuxshay abujahal cabaadkiiyo markuu cadheedhaqdii daayey cadahooda maantii la wada ciidda iyo boodhka cantalyaaga iyo xuurta iyo cawriyaha duula coomaadihii iyo maalintuu haad ku cuni waayey cirka sale markii caawimiyo ciidan laga keenay gaaladu markay carartay ee agaha maalaysay markii caymadka iyo fiidhihii kaynta ku carceeray cali maalintaa wuxuu ahaa ciidankii jarae isba wiil carbeed buu ahaa oo cajaa'ibahe caynkaa u fahan yaa wax kale lagugu caamayn iyagoon ciidda hoosteeda gelin oo carrada jooga casharii jannada loo qoray ee loo cayimay khayrka cabdulaahi cumar iyo cusmaan cali abu taalib subayr binu cawaam iyo dalxiye saacadkii ciil beelay ina coof cubeydiye saciid curafadii diinta carab bay ahaayeen iyaba curadadeedii weliba waa cibaadada raggii caanka ku ahaaye caynkaa u fahan yaa wax kale lagugu caamayn casiiskan ku dhaartay allihii caadilka ahaaye carabiga haddii aanad baran caynka iyo jiimka ama aanad culimada duruus caadi uga qaadan casharada kitaabada haddaad ka cokanaan weydo cimrigaa wuxunbaad ahaan caamo dhiga weyn luuqadaha kan lagu ceeshayo ee carada buuxa ingiliishkan ruuxii cugtaba lagu ciseynayo faransiiska soo caanbaxay ee caasha lala taagay talyaaniga wax lagu caayo lagu cambaareeyo cidhifyada adduunyada waxaa codad ka yeedhaya haddii aan caqliga kaashadaan cayn walba u eegay kuma jiro mid carabi u dhigma ama cageeyahay inkastood cilmiga maadiga caada sare gaadho oo 100 shahaado camiran lagugu ceeriyoonsho mar haddaanay kaa caawinayn camalka diintaada amaan lagu cibaadaysanay waa cirka utu cadadka qur-aanka iyo sunnuhu carabi weeyaane cibaadada waxaa lagu gutaa carabi weeyaane waxaa diinta kaga ciil baxdaa carabi weeyaan casiiskan ku dhaartay allihii caadilka ahaaye carabiga haddii aanad baran caynka iyo jiimka ama aanad culimada duruus caadi uga qaadan cimrigaa wuxun baad ahaan caamo dhiga weyn intaasaan kolley kaa kusoo gaabinaya hadii laha ka dhigo insha allah